معها قف يعني قف انت صدر صدي اللي يراهدو ادو سند كان حلبان يسو نقو لعقت انا كا بخنايه بريتو سي ادي دورتد معها قف محو ahay asagu jecel ma aha waxa waa qofka adigu u baahan tahay sideen u dooranaa waay waxa loo dooran karaa hadda ka soo qaato saal waxaan ka soo qaadan anaga magaalada Gaalkacyo ku noolnahay magaalada Gaalkacyo xildhibaano badan ka soo baxaya waxaan rabnaa magaalada iyadii si ay u horumari lahayd oo macna u yeelan lahayd inay xildhibaano macna nooga soo baxaan aniga ma rababa ninka aniga reerkayga ah ama gabadhan reerkayga ah aniga yani waxa ii soo kordhinayso gaar ma laha waxa la rabaa in la xulo matalan xoogaa bulshada qaybaheeda oo kale culimada dhowr qof laga soo qaado haweenka dhowr qof laga soo qaado wax garadka iyo aqoon-yahanka wax laga soo qaado odayaashii nabadoonadii ay halkaa fariistaan ay yiraahdaan waa preliminary yani qofka in la sii baaro war la yiraahdo wariyaa raba sanadkan inuu xildhibaan noqdo waxaan rabnaa xildhibaan noocaas ama dad kale la keeno qofku uu dadka kortiisa ka present gareeyo anigu saasaanahay waxaan bartay halkaasaan ka imid muxuu ahaayay saasaan rabaa inaan qabto kanaan rabaa inaan qabto mabaadi'deedu waa sidaas markaas ka bacdi dadkaas halkaas jooga ay yiraahdaan wallaahi ninkaas waa yani nin noo qalmo waaye marka asagu ayagu dooran mayaan marka kaliya waxay leeyihiin annagu waxaan is leenahay 10 kaas qof ama 20 kaas qof oo gobolka mudug ka socda waxay nala tahay inay noqdaan xildhibaan oo u qalmaan oo tartamaan marka dib 101 doorato you don't care haday halka xushaan ila jaa already dadka waa soo identify gareys waxa yihiin waa ogta marka su'aasha isweydiinta laha waxay tahay laba xildhibaan ka hadalnaa waxaan ka hadalnaa xildhibaan xallin kara mushkiladihii wadanka soo maray 20 sano ugu dambeysay oo dawladda Soomaaliya ay jirtay wax ka xallin kara ama root cause meeshii dhibtu ka timid xalli kara miyaan ka hadalnaa mise waxaan ka hadalnaa yani 4 sano marba xildhibaano loo baahan yahay xildhibaanada si loogu buuxin lahayo xilliyadii tagay oo kale si loo buuxiyay hadii aan ka hadlayna xildhibaan yani mushkiladaha wadanka ka jira xalli kara marka ugu horeyso in hal su'aal isweydiino halka su'aal isweydiino waxa waaye waa maxay mushkiladaha jira sidee bay u saameeyeen dawladnimada u saameeyeen mushkiladaha jira waxa waaye waxaan aragnay oo qof kasta garanaya 4 sano marka la gaaro xilligii dawladnimada waxa bilaabatay walaahow doorashadii sidee loo qabtaa goorbaa la qabanayaa xilliga la qabanayaa gudiyaha la saaro waxyaalahaas la saaraa bilaabata marka waa sanad kasta xildhibaanada waa la doortay way soo joogeen marka maxay xildhibaanadii la doortay waxa lii waayeen mushkiladaha soo noqnoqdo oo sanad walba loo baahdo maxay waxa lii waayeen waa su'aasha ugu weyn oo macnaha u baahan in la xalliyo maanta lagana fakaro u baahan waxa waaye hal waxba dhibtaas oo dhan keenaya dhibta keenaya waxa waaye heshiis bulsho oo arrimahaas xalliya baan jirin heshiiska bulsho waxa waaye waxaan naqaana dastuurka oo basically ku salaysan shariicada islaamka maadaama dad muslim aan nahay oo dadku ay qorteen kaas hadaba يعني ayaa waxa uu keenaya mushkilada maanta na haysata in 4 sano kasta la yahay xildhibaanka loo baahan yahay sidee loogu baahan yahay qabiiladee la siinay jifadee la siinay hebelowka la siinay baa keenaya kaasa dhameystirnay marka kaas sidee uu dhameystirmi karaa wuxuu u dhameystirmi karaa waxa waaye dadka maanta ay xulatid ayaa waxa ka filaysa 4 sano ka bacdi ma isla walaahowga ku jiraysa mase waxba iska ka bedelay waxa waaye marka aad dad muxuu ahaa integrity leh oo qiimo leh oo yani aan ahayn waxbaan rabaa marka anu wax rabo waa wax kale yani danta aan ka leeyahay xataa ima garan kartid laakiin la yiraahdo war mushkiladaas aan qabnaa dastuurka inaan dhameysana u baahanahay madax fiican inaan doorana u baahanahay dalku inuu wixii aan ka filayna aan ka helna u baahanahay qof dalkiina wax noogu celinayo horumarkii dalkana ka qayb gali kara annagii constituency-ga iyaga oo uu naga tagayna wax nagu soo celin kara u baahanahay marka laga hadlayo waa wax kale for example uma hadlayna markaas oo kaleeto xildhibaanka aan ka hadlayna markaas ma noqonayo jifa ma noqonayo reer hebel ma noqonayo waa reer Gaalkacyood
reer gaalkacyood himse xildhibaanaa ka soo baxa kuwa galmudug ka soo baxa kuwa isla muxuu ahaayay Puntland laakiin siyaabo kala duwan oo shaqo isku lahayn oo qolo walba ay dadkeeda inta soo xulato qolo walba dadkeeda ayuu dirsato oo qolada kale ku xirneen ay jirto sidaabay dadkaas oo dhan ay xildhibaano isku mid u wada dooran karaan waxa weeye dastuurkan yani ma ahan sida hadda maanta loo fasirto dastuurku waxa weeye waa la cusleeyay sanado badan uu qaatay laakiin culays ma laha waa wax anaga yani nagu hagaaya dantayada waaye wadamadii hadda burburay oo dastuurka dib u sameysay Lebanon waxa kamid ahaa Lebanon baa kamid ahayd Tunisia kamid ahayd 90 days ku sameysteen 90 days sababta maxay tahay ma taqaanaa waxay rabaan dastuurkan aniga maxaan ka rabaa waxaan ka rabaa inaan wadadii aan maray lahaa kaliya ugu toosiyo waxaan rabaa inuu jeebka iigu jiro oo aan iraahdo haye maxaa xaq la iigu leeyahay maxaan xaq la iigu lahayn waxaan rabaa inaan iraahdo caafimaadka muxuu iiga qabanaa biyaha muxuu iiga qabanayaa muxuu ahaayay horumarinta muxuu iiga qabanaa xaq aan leeyahay oo dhan sideebu muxuu ahaa u sixi karaa waa inaan haysto ogahay waa markaan ku dhaqaaqay aan ogahay wixii xiraaya iyo wixii anigu aan xaq u leeyahay inaan ku ogaan karo kulligiis waxa weeye waa wada heshiis waa waxaan ku heshiinayno annaga marka waxaan ku heshiinayna waxa weeye maanta qofku wuxuu u qabaa ama ka madaxda joogto ama ka madaxda xataa maamul goboleedka jooga wuxuu qabaa wuxuu leeyahay annaga reer Hibelow annaga reer kana inuu muxuu ahaa bahalka ma aha adigu ma lihi waxa iskal ummadda Soomaaliyeed waxay tiraahdaa wax umusha u roon ba ilmahan u roon waxa looga jeedaa hadii hooyadu wax cunto oo caana cabto oo wax cabto ilmihii naaska caana fiican uu ka helaya ka bacdina uu noolaanaya si fiican buu u dhaqmaya marka waxa weeye waxa aniga wiilka gada jooga ama wiilka ismaaciil jooga waxa u roon ba ay roon wuxuu igu roon yahay hadii la yiraahdo waxbarashadii ilmaha da'doodu ka weyn tahay 14 sano ka yar tahay waa free ama 50% baa la dhimayaa anna danba ay ugu jirta asagana dana ugu jirta hadii la yiraahdo dadka waayeelka ah dadka dhimirka la dadka caruurta ah caafimaadkooda waa free kaar bay leeyihiin kaarkaas muxuu dastuurka lagu qoro asagana faa'iido u tahay wuxuu leeyahay anuu ma rabo no qofkaas wuxuu leeyahay waa rabaa hadii la yiraahdo magaaladan gaalkacyood maanta aan ku noolnahay waxaan rabnaa inay biyo nadiif hesho biyaha nadiifka ma kaliya ba cabaya mase jifadayda cabaysa mase reer Puntland kaliya cabaya may biyaha nadiifka waxa u baahan qofka soo gaalkacyo waa arada maanta 3 biyood gaalkacyo laga isticmaalo kuwa cunada lagu karsada xareed kuwa waxa lagu dhaqdaa dharka kuwa waa la cabaa kuwana waa lagu qubaystaa يعني marka intaas oo dhan inta xalismaan hal biyo noqdaan anaga danteena ku jirta marka dastuurkaas waxba uma baahna hatta qaybaha la yiraahdo waxay u baahan yihiin heshiis bulsho heshiiska bulsho waa kaas oo loo baahan yahay wax kale ma aha waxa weeye midtalan kobar baa laga soo saaray gobolkayga tuuladeyda laga soo saaray ama shidaal baa laga soo saaray waxa laga hadlay waxa weeye tuuladu laga soo saaray oo bulshadu ku baxayo oo waxaas ku baxayo oo hawluhu ku baxayaan maxay xuquuq yeelanaysaa degmada ay tuulada ka tirsan tahay oo degmadeeda laga soo saaray maxay yeelanaysaa magaalada weyn maxay yeelanaysaa marka xaqi kaliya ma noqonayo xamar baa wixii laga soo qaaday oo Puntland baa la keenay xamar marka laga soo qaado waxaan rabaa Puntland laftirkeeda inay sidoo kale xaq u noqoto oo la yiraahdo tuuladii xaafadii muxuu gobolkii waxa soo kale dadkii loo xaq sooro marka waxa loo baahan yahay dastuurkaas inuu dhamaado dastuurkaasuna waa mid kulligeen danno ah waxa waaye marka 4 sano la gaaro in dadku codeyn u dareero oo qofkii muxuu ahaa dadku rab ay doortaan in ay ka soo baxdo waxa waaye in la yiraahdo madaxweynuhu wuxuu leeyahay intaas oo sanadood markay dhamaato oo walinjidiisa xirxirto la yiraahdo qofka xildhibaanka noqonaya ama wasiirka noqonaya waa qof shuruudaas waxaas way wax dastuurka ku qoran waa wax sahlan marka qofka waxaan karaa waa qofkee waxaan kale aaminsanahay yani dadku waa is yaqaanaa qofka asagu ku imaan mayo kumana rabo يعني كليه ما يحلبان يقدر marka daniisa kala ka badan reerkiisa dantiisa kale wixii kale umad u qabanaya ka badan hadaa aduu inta u tagtay aad tiraado war waxbaan ku bidaynaa oo hebel baa lagu dhahaa oo saasa la dhahaa waxaan ka rabnaa sanadkan inaan gobol ahaan ku xulano ayaduna wax kale oo lagu xulanay adigoo yaqaan qofkaas wax aad ka fili kartid marka dadkaas markay tagaan waxa waaye xoolo kugu raacimayaan laaluush ka qaadan mayaan yani waxay fiirinayaan kaliya oo leeyahay ilaahay hadaa taqaanid qofka aad isleedahay wadankaas wuxuu tari karaa noo door
qof fiican buu dooraya qofkaas marka mabaadi baa lagu heshiinaya mabaadidaas la raacaya dastuurkii ma samaysay waxa lagu sameeynaa 6 bilood ma aha inaan 5 sano fadhiyo 5 sano aniga qofkaan mushaarka iigu fadhiyo maan garta anugu inuu sadan yahayn 5 sano asoo wuxuu u fadhiyaa meeshan inuu mushaar qaato wuxuu rabaa magac in la yiraahdo hebel wuxuu ahaayay waa wasiir hebel ma aha wasiirku waxa waaye haduu waxba ii qabanay waa inta shuruudo xiri kara ama waxyaabo xiri kara inay jiraan waaye xildhibaanku waxyaabo xiri kara inay jiraan waaye marka waxa waaye anaga waxaan rabnaa xildhibaan noocaas lagu doorto ujeedka aan ka leenahay waxa waaye inuu mushkiladaas xalliyo mushkiladaas oo ah dastuurka mudeeyo dad ehel u ah loo qoro oo aan yaani dan ka lahayn aqoonteeda la aqoontu waa iska buuxda dastuurkan waa qoran yahay meel walba waxa yaala intaas oo korjadooda macluumaad ama laga soo arooshay urur bulsho ama odayaal laga arooshay ama culimo laga arooshay ama dawladda laga arooshay waa buuxaan kaliya waxa la inta la soo qabqabto la isku duduwo waxa way qof baa wuxuu ka hadli karaa inuu yiraahdo muxuu ahaayay mabaadiida dastuurkan ku saleysay waa mabaadiida diinta islaamka qof baa dhihi kara maya مقف بوحو دي كرا موادنمد وقف انه سومالي هو مسلم ومايا يعني قفك بن ادم كا وحو u baahan yahay inuu helo biyo nadiif inuu helo caafimaad inuu helo wax barsh qofna ma diidi karo yani ma ahan gobol hebel baa soo diiday baarlamaan hebel baa soo diiday maamul hebel baa soo diiday maamulka sidiisaba maamulka waxa la rabaa koonfur galbeed iyo ka gaalkacyo jooga oo Puntland jooga wax midayn kara ba dastuurkan ku qoran marka waxa la rabaa walaal dastuurku inuu dhamaado waa waxa kaliya mushkiladahan maanta soo noqnoqonaya baarlamaanka keenaya markii taas u dhamaato qof iyo codkiisa noqdana adaa hankaaga tijaabinaya halkaas istaagaysa waxa leedahay war hebel baa leedahay war waxa raba inaan qabto ama waa lagu dooran ama waa lagu diiday markaas waxa waday xilkaama saarna laakiin inta xulku jiraan sheegaya xulku waxa waaye mushkilad baa la rabaa in lagu xalliyo mushkiladii ka soo qaad aniga hadda cidna ma raba inaan bilaam gareeyo dadka dibadaha jooga waa dadkayagii dal kala ma laha meel iska doortaan oo kala ma laha laakiin waxa la rabaa iyaga laftirkoodu in ay yani wadanka wax ka yaalaan hadda adigu shaar Israel ila timid iyo walinjo xiran debri markaa weydina waa la noqonaysa laakiin caruurtaadii meeday dugsiga ma dhigtaan quraanka ma dhigtaan waa inuu filter jira wax aan yani ku filter gareynayo waa inuu jira wadaadada marka qofka quraanka ku akhriyaan marka hore quraanka waa la wada saaraa dadka dhan marka la wada saaro qof baa jiradii qabaha markaas qofka la bixina xagga la geeyna waxa la sameeynaya special quraana oo arrimihiisa xaliya lagu akhrinaya marka dadkana sasal raayna oo kala filter gareysid okay qofkan waa dooranaysa meeqa wasiirana soo martay oo marka xilkiisu ka dhamaad iska tagay marka adiga aad ka fikiraynin school muxuu ahaayay ilmahaaga in iskuul waayo in fiiga aweydid in biyo muxuu cunto cuno u waayo in waxyaas waayo shaqada ma aha dan ma xalii kartid waxa la rabaa yani markaan ka hadlay baarlamaanka ma aha baarlamaanka qaranka kaliya ma aha baarlamaanka degmada xataa laga hadlay gobolka baarlamaanka degmada markaan ka hadlayo oo dooranayo ma waxaan dooranayaa wiil yar aan rabo inuu muxuu ahaayay bariis wiiliyaan oran ama oday wuxuu raba ahaado raba inuu asagu kiish bariis ka raadsado ama wuxuu cuna ka raadsado ma qof mushkiladaha gobolkaas yaala wax ka xalli kara mushkiladaha maxaa kamid ah mushkilada amni baa jira mushkilada maciishad baa jira mushkilado horumarin baa jirta mushkilado muxuu ahaayay waxa jira dadeed oo dadku u baahan yahay horumarin iyo aqoon iyo waxbarasho iyo waxyaabahaas mushkiladu ma aha kaliya marka xildhibaanka muxuu ahaa qaranka kaliya kama hadlayno xataa waxaan ka hadlaynaa xildhibaanka deegaanka ilaahay xildhibaanka deegaanka adiga aad ku quseeya oo baahidaadii maalinlaha ahayd yani aad uga baahan tahay inuu fuliyo marka ma waxaad u baahan tahay mid ka raba in isbitaalkiisu shaqeeyo oo dadkii magaalada degan yahay oo faraxsan yahay oo lacagta bixin karo mid ka raba korontada inuu qoys kasta muxuu koronal daarto oo biil subax u soo doonto bisha mid ka raba inuu biyo u soo doonto mid ka raba qaarkiisa inuu furan yahay supermarketkiisa furan yahay baabuurtiisa shaqeeyaan markaasa xulanaysa oo wax kugu daraaya oo laaluush ka qaadanayn oo asagu inta muddo yar oo gaaban fadhi oo ku daba dhagayn mid maayar ah farq qabsanayn oo dhahaynin maayarku waxa weeye waa qof service ku bixinaya waa adigu ku shaqeynaya awaamirta aad dejisid
وحلبانada ay dejiyaan buu ku shaqeynaya waxa leeyahay sidaas yeel cashuurta waa noocaas mabaadi'da lagu shaqeynaa waa taas waxa la rabaa inaad wax ka qabatid biyaha caafimaadka fiiro-dhowrka nadaafadda jidadka nalalka amniga waxa soo dhan baa inaad ka qabatid markaan 4 bilood ama 6 bilood aan fariisanayno waxa la fiirinayaa intii muxuu ka qabtay markaas ka bacdi duusa ka qaban waxa leeyahay adeer ima anfacdi adoo mid kale ay anfacaan keenaya hadduu fiicnaaday oo wixii sameeyeen waad sii dhiirigelinaysaa waxaad waxaynaysaa haddii budgetkii iyo canshuuraadkii dadkii markaas diyaar u leeyahay inuu bixiyo laakiin mid raba wixii adiga uu ka qaado xunka raba in laamiga la igu xaaqo raba inuu farqa gashado oo jeeb ku shubto waxba iima taraayo marka aan waxaan dhihi lahaa yani baarlamaanada noocaas ama mid deegaan ha noqdo mid kale ha la noqdo in dadkaas la raadiyo ku imaan mayaan hadda aniga igala qayb gal tiraahdi de ku imaan mayo sababtoo ah gurigaygaan joogaa danahayga waan haystaa gaarigayga waan wataa noloshaydi waa haystaa waxaan bulshada u qabanaya waa u qabanaya maxaa aniga mushkilad iyo qababax kaleeto iyo orod iyo kaale safargal oo reerkaaga iyo gurigaaga inta dumisid safar kale magaalooyin kale u aad de qofku ma rabo marka sidaas oo kale waxa la rabaa qofka inaad tiraahdi war dantaadii baa meesha ku jirta hawshan iyo dantan iyo bulshada kuwa ka sii liitaa in wax loo qabto bal raba in saas dadka loo waxeeyo aniga marka waxaan qabaa hadda aan ugu soo darsanaya magaaladan waa markii 7-8 oo kaleeto oo xildhibaano la kala diro de waxa loo kala dirayo ma aha aqoon daro dhalinyaro waxa jirta aniga garoonkan hadda waxa igala shaqeeyay dhalinyaro yani waayeelka ka caqli badan oo ka shaqo badan oo ka dum badan laakiin hadaa tira dhalinyaro ma tahay oday ma tahay aqoonyahan ma tahay hadii aqoonyahanka waa hor maskaxdiisu gubatay oo uu ku shaqeyn oo updated ahayn yani aqoonyahan kuma aha oo yani isan activity muxuu ahaay activenimo la socon waxa la rabaa yani inuu qofku yahay qof dynamics leh oo yani localkii wixii dhulkii macnaha wadankii iyo wixii yaqaan wax ka qaban kara oo dhigi kara muxuu ahaa halkaas mushkiladu ka taaganta marka aan waxaan dhihi lahaa xildhibaanada wax mushkilada yaa loo arag waxay wada ordayeen tuuga waaye 3,000 ay qaataan 3,000 hoteelka xamar oo bini aadan ku noolaan karo oo wax laga cuni karo $100 waaye cunadiisa iyo hoteelkiisa waa ka ugu yar oo yani ugu aan weyneyn marka waxa way $100 waa $3,000 aa askartaadii aa waardiyahaaga aa darawalkaaga aa seerskaaga aa xaaskaaga waxa siin lahayd aa ehelka waxa siin aa waxa dadka ku casuumi waxa dibadaha ku wareegtid waxa dibadaha guryaha uga gadatid waxa soo dhan waa wax aysan lahayn waay waa masaakiinta waxoodii waay marka dadka waxa la rabaa waxyaabahaas oo dhan yani muxuu ahaay iska ilaalinaya oo inay sii kordhiyaan maahan qof wanaagsan dooranayo aniga xildhibaan markaan ahay oo qof sharaf la ahay oo qof deegaan degan lahay oo qof damiir la aanahay marka aniga qof inta ii yimaado yiraahdo waxaan ka bixinayaa 100,000 xildhibaan raadso de anigu ma waxaan ahay anigii ma qof leeyahana qof leeyahay baa asaga ku leh barka asaga ku iibsaday waa ina meeshu markuu yiraahdo martaa waa inuu wuxuu sameeyo ku yiraahdo aad sameeysa waa in damiirkaagii aad ilowdaa iyo dalkii iyo dadkii iyo ummadii ama talayso dhinac ilowdaa marka waxa loo baahan waxyaalahaas in la iska ilaabo waxa loo baahan ilmaha yar yar oo hadeertaan leh halaygu daro gudiyada wax dooranaya deymaa laygu leeyahay ama waa aroosanaya ama xaasban leh inay waxaas ka tanaasulaan waxaan waxa dad wixiis waaye waa ummadaadii masiirkaaga dooro aniga inta ku talin lahaa xildhibaanadan waxaan dhihi lahaa yuusan qof kasta geyn oo haweysan waa inaad u geydaa yani inaad change sameyn kartid waa in qofka track recordkiisa la fiirsho muxuu ahaan jiray ma tuug buu ahaa ma muxuu ahaa ma loser buu ahaa hada anaga dadka dibadaha ka yimaado de markay yimaadaan waa dad ilma adeerada iyo wada qurxoon wada suud iyo jaakada qaba de waa in adeerkaayo maalmaha hore oo waxayso dadka dhan baa wadwadaya laakiin maxaa ku ogta reer fiican xaas fiican ma aha oo xaas fiican xarkiisa iyo reerkiisa iyo qoyskiisa ilmihiis wax ma baran jireen ilmihiisu ma losers bay ahaayeen mid waa reerkiisa inta ka tagay ilmihiisina beerta galeen buu ahaa ma wuxuu ahaa bid shaqaysto oo shaqo iyo amal iyo muxuu ahaaye meesha uu ka yimid laga jecel yahay buu ahaa ma mid soo darbiyada iyo Starbucks u taagnaa yiri alla ilaahay halkan waa ku bay hoofay aan Soomaali wax ka dayo ahaa waa inaad dadka fiirisaa yani track recordkiis ma aha aniga inaan dadka dibadda jooga kuwa gudaha jooga xataa waa inaad fiirisaa ma mid waagu markuu bariyo bari muxuu ahaaye yoomiga
inta raadiya meel la fariista oo aan bini aadan waxa uu qaban ummaduna aqoon inuu joogay inuu maqan yahay aan aqoon miyaa bas qof bulshada wax u qabta intaas la kala saaro waay waa in la fiiriyo oo kale aad fiirisaa yesterday waa inaa fiirsa qof ay ogtahay inuu ku xaday ku dhacay guriga ka dhistay hanti ka samaysay gurigiisu muuqdaan iyagoo albaab cagaaran يعني سيدان ما أنت وهويسنيس إنه محوها أتراوى قف عن ما نقول كره بكل شيء وحوي يسوى تقانا ما أنت وحوي يسوى وين تقانا يعني أديك السيرفيس كاجا واحد كل نوشه عندك وما هيسته ينولشاد كل شيء قيس عندك وما هيسته لكن واحد لو هيسوى حوار أنا أنت إذا عدد هذا نقف عن كوا أقان ويقصوا نقطة بروا قربة أوكي ما كانت وأنا دبقل أدهم محاشة أي قبضتي محاكنا أي قبضة دي أفر ويلو غيرها جاهد أسكر كليت والدليو ضاوع مالها سوق دنتي هي أفر عرورها ذو حد سكول كود عادي وهي قانيو يعني لوكال كان تك كحيسي بعد ماذا يصير لقد دي سيو وحيس أقون الأدقيس وبرهنا العقد كهذا مات مركو اللقد أجنبي أنت برتي صوح برشة جارتيسينا كحيس محا فائديس حتى كسوق عندنا جورك قدرت الدبل أنت تكتير جورك محب كون فائدينا يا جورك وحلو عنو الرباء أقوانو الرباء وحلو كرديو الرباء ضد أبورو الرباء مياد هاي ستحلك وكذا ماضي مركو ولا ليالو حاربنا وضياشونا أيجنا خير الله السيو مرة بقينا أنت سوق ضعفه أيجا لفت كذا وحي ربا إن يمد والبرنامج كتابتان هان أذيجا ورمحا دورك uga taansan ninkan dadkaas u shaqeynaya dadku ha filter gareeyaan ha baaraan hadaaratid kaalay faarax ma rabtaa maxamed ma rabtaa maryan ma rabtaa xaliima ma rabtaa kulligeen imaada 20 qof 30 qof u saar ha soo filter gareeyaan war dadkaas naga soo tijaabiye waxbayna warsadeen ilaahu ma noqdaan afartuba hadda xargab baas baa bilowday anu ma aqaan xargahan waxay yihiin oo la leeyahay xarg hebel ma la siiyay bas xargani waa loo diiday who cares xarg ma xargiga galay aniga xarg hadii wada yahay waxaan barabin inuu ii soo baxay aan rabin ba maxaan anu macnaha ii sameeynaya xargani waxaan rabaa haduu rabo hal xarga ka wada yimaadaan xarga la sheegayo laakiin waxaan rabnaa dad nadiif ah oo gaalkacyo iyo jiritaankeeda iyo rabitaankeeda iyo Puntland iyo Soomaaliya wax ka qaban kara ma santa